Hi guys, waa ini salaamay. Maanta waxaa idin wadaa Aflaan waa gabar YouTuberad ah. Qisadeeda ay wuxuu ugu soo hasbartay YouTube-ka ninkeedii hore X-ka ahaa iyadoo ka sheeganaysay maanta ninkeedii X-ka ahaa wuu guursaday arooskiisa ayuu shaaciyay naagtii hana ahayd oo ka qaaday Aflaan ayuuna guursaday. waxaa kale oo idin haya naagtan ninkan oo baalaha laga rifay gabdhaha Soomaaliyeed ka rifeen oo Soomaali dhamniman iyo gabdhaha ka rifeen. waxaa kale oo idin haya ninkii Aflaan X-keeda oo dambi hore u soo geystay gabar 24 jir ee guursaday Soomaalida FBI way ka dareeyeen warqadii way keeneen marka iyada way sheegtay qisadan waxay tiri waa nolol igu horeysay naagtii hana ahayd oo iyadana barta TikTok ku soo biirtay snaapkeeda ka bixinaysan uu qaado duubis marka ninkan waxa la dhigay farxad si jirtay ma noqon kartaa mise farxad waxay noqon kartaa nabad jabis oo isboosis aroos maanta waa gabdhihii isku duubnaa muujinayaan gabadhi kale oo niyad jabsan dhahay hore u soco sanado ka hor anaga saas ma ahayn gabadhii wax ku dhaxay jiro ku diga jirno ayada isku geysatay maxaa ugu fiirsaday ninkii guursatay maanta waxa dhigi karaa gabadhii isku duubnaa muujinayaan inay wax fahmeen hadii ka farax hadaa u tashano yaa hal gartay xataa gabar min soo xumay inaan la guursaninbo haddii waxa dhigi karaa midaan doqonta oo faraxsan kale farxadaan mid siraayo doonto ma tahay eber waa sharaf dhimatay gabdhii Soomaaliyeed waa caqliisteen oo isku duubleen ninkan waa gabadh walaashin afnaaninkii xumeeyay qosooyinkeeda ka sheekaysay YouTube-ka aroos xabladu dhiganay sida loo karbaash nolosheeda ma arag gabdhaha Soomaaliyeed sidaan isugu duubnaataan oo farax kii gabar xumeeyay asaa u karbaashtiin nin dambo gabar xumeeyay la barkeen farax migi baasta anaga dhan fulayina ay wax iska keen celiya weyn isku duubnaanta ana balan haddaan mucsataan naftirkaaga subscribe kana saar soo dhawaada asxaabte haddaad jeceshihiin inaan iga soo hadlo ninkaas taariikhdiisa kooban X-kii hore Aflaan comment ku soo qor waa idin soo hadli doona taariikhdiisa kooban